Halkan waa iskuulka Geedo oo loo soo gaabshay Galgaduud Youth Development Organisation waxaana aasaasay dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Cawdwaq isla markaana ku nool dalka dibadiisa. Kadib markay arkeen baahida waxbarasho ee ka jirta deegaanka Cawdwaq gaar ahaan waxbarashada dadka waaweyn, waxaa la aasaasay iskuulkan 2008 waxaana wax ku bartay arday isugu jirta wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ka kooban dad waaweyn iyo dad yaryar. Waxaa iskoolka lagu bartaa luqadaha Soomaaliga, Xisaabta, Sayniska, Ingiriiska, waxaana wax bara ardayda macallimiin wax ku bartay deegaanka. Waxa uu iskuulku soo maray marxalad kala gedisan, waxaana wax ku barta arday aad u fara badan. Hadda waxaa wax ku barta arday gaaraysa 167 arday, sida uu noo sheegay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta iskuulka Geedo. Ardada wax ka dhigata waxay ku bartaan lacag la'aan, isla markaana macallimiinta wax ka dhigta waxaa mushaarkooda bixiya dhalinyarada aasaastay iskuulka oo ku nool qurbaha. Macallin Cabdikaafi Xasan ayaa nooga warbixiyay marxaladii uu soo maray iskuulkan. Wallaahi wabarakatuh. walaal magacay waxaa la yiraahdaa Cabdikaafi Xasan Faarax. sidaad u aragtana waxaan joogaa iskuulkan qaybta maamulka. walaal iskuulka waxaa la furay oo hadda furan yahay ilaa in muddo dhan 3 sano kasoo bilaabata 2008 ilaa iyo haddeer. iskuulka walaal waxaa dhigata hadda arday dhan 167 arday baa dhigata oo fadhida, kuwaas oo ah dad waaweyn adult ah, da'dooduna ay ka sarreyso 16 jir. waxaa ku jira arday kale oo ka mid ah 167daas oo yar yar ah, kuwaas oo u dhexeeya 12 jir ilaa iyo 16 jir. waxaana keenay oo ay iskuulkan uga soo qayb galeen waxa la yiraahdaa waa dad raja ah ama agoon ah, kuwaas oo aan heli karin inay iska bixiyaan facility-ga ama V-ga laga bixiyo dugsiyaasha kale oo lacagta ah. walaal iskuulku wuxuu soo maray heerar badan. tirada guud oo ardada aan qabanay waxa weeye 3 sano aan iskuulka wax ku barnay waxa weeye 849 arday baan qabanay. 849 arday baanu qabanay. waxaa jira caqabado bulshadu ay leedahay, kuwaas oo ah in ardaygu uu soo galo isagoo waxba aqoonin iskuulka, bacdeen markii uu dhiganayo 6 bilood 7 bilood af Soomaaliga uu barto, xisaabta ilaa fraction uu barto, ingiriiska uu barto, wordiska ama wax la yiraahdo inay si jumlad u dhisi karo ayay tagaan. waayo fursadii baan dadka siinaynin markii horena isagoo qof weyn ahaa, haddana hawlaba isaga imaanaya. qof fursad u helay inuu 3 sano iskuulka si toos u fadhiyo ayuu ma jiro. waxaa jira arday ilaa heer aan gaarsiinay dugsi dhexe aan ku wareejinay iskuulaadka kale sida iskuulka Hirdo 45 arday baan ku wareejinay, kuwaas oo aan geynay inay imtixaan galaan fasalka 7aad bay u galeen ilaa iyo inta ka hooseysa waxaan fariisteen 8. walaal iskuulku waxaa la yiraahdaa Geedo School. waa gartay Geedo waxa weeyaan waa Galgaduud Youth Development Organisation, taasoo ah macnaheedu uu yahay dhalinyarada waxqabadka Galgaduudeed. waxay dhalinyaradaasi yihiin dad deegaanka u dhashay weeye, kana fakeray sidii deegaankooda ugu qaban lahaayeen, kana amba qaaday in bal dadka yar yar iskuulaad waa loo helay, way u furan yihiin carruurta iskuulaad ugu soo dhiso. inkastoo aanay jirin waxay dawladda fangarayso oo si adag gacanta loogu hayo, hase yeeshee qofku wuxuu heli karaa ruut uu ku socdo baa la gaarsiiyaa. laakiin dadka waaweyn waqtigooda lumay, maadaama uu waqtigooda lumayna waxaa loo diyaargareeyay iskuulka. walaal waxaa jira caqabado iskuulka uusan ka maarmaynin. iskuulka waxaa fangarayn jiray dhalinyaradaas in muddo ah, hase yeeshee hadda wuu gabaabsiiyeen. macallimiinta unbaa hadda wada wax fangaraa oo hadda iskuulka ku baxa inaba u yarata ma jiraan. kirada waxaa iska bixiya macallimiinta ayaa bixiya, waayo macallimiinta ayaa qaar waxay ka shaqeeyaan meelo kale si iyo dad ururka ka mid ah weli oo iyaguna magaalada jooga oo shaqeeya. waxaana isku dhihi karaa dhammaan dadka hadda iskuulka gacanta ku haya wada waa dad tiradoodu ay dhantahay 9 qof way, kuwaas oo mushaaraadkooda ka jara kirada iskuulka. iskuulkuna walaal waa sidaad arkayso waa 3 qol oo wax lagu dhigto iyo qolka office-ka ah. aftaas qol weeye, kadiisu waa lacag too much ah markii loo fiiriyo xagga macallimiinta
oo waxaan heli karin macallimiintuna ilaa iyo hadda muddo 3 bilood waxay ku dhigaan free bay ku dhigaan ayadoona ardada waxba laga qaadi jirin markii hore baa haddana tabarruc yaraa ee macalinka jeestada iska xijin jiray baa waxay noqotay in caqabado aan la kari karin walaal iskuulka waxa caqabad ku ah waxa loo baahan yahay markii wax la abuuro oo waxaas miro dhalaan in mirihii ay dhaleen ay noqdaan kuwa lagu intifaaco iskuulka ilaahay hadda wuxuu taagan yahay soo barbaarinta dadka waaweyn uu taagan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay in loo furo dadkii taqaqusiyo in la siiyo sida computer caafimaad dugsi farsamo in loo furo u baahan yahay hase yeeshee dee urur wuxuu qaban karo oo wax iska yar waa dareemi kartaa tirada uu qaban karo urur oo tayeysan waa wax iska yar wey caqabadaha jira iskuulka ku jirana waa horumar la-aanta 3 sano intaas ah weeye oo aan weli waxba ku kordhin educationkii mooyaane in dadkii lasoo barbaariyo mooyaane waxba kale kuma kordhin walaal iskuulku ardada guud oo soo fariistay waan kuu sheegay ardada hadda fadhida waa intaan kuu sheegay waxaa jiray marar ardadu ay gaadhay 320 arday ay gaadhay ayaguna ay wada ahaayeen dadka waaweyn waxaa jira oo kale dadku way baxayaan way soo galayaan markoo wax barto ayaan u baxaya sida aan kuu sheegay waxaa jirta dadka aan waxba baranin oo dadka waaweyn waxa u badan dumarka ayaa u badan aad iyo aad ay dumarku ugu badan yihiin waayo waxaad moodaa gabadhii in laba misla loo kaydinayo marka ay soo xoog iyo awood gasho waxa loo kaydinaya shaqada gurigooda marka ay kasii kacdo oo ay gaadho heerka hadda ardada aan ku qabano sida 16 jirka waxay higsanaysaa hanguur waxaadna moodaa dumarka haddii la yiraahdo 16 bay gaadhay in quudkeedu uu ku xiran yahay gacanta ninkeeda bay iska dhacsiiyaan inta badan Soomaalidu hase yeeshee kuwa halkan nala jooga way bartaan wax dumarkaana u badan inta badan iskuulku wax ka shaqeeya 3 macallin iyo maamule baa ka shaqeeya inta badan baa la radeynay macallin jiradii u dhacdaa macallin ha u qabsaday way dhacdaa laakiin inta u diiwaan gashan waxa weeye 3 macallin iyo maamulo way waxa la soo galay iskuulka 8 duurnimo waxa laga rawaxaa 2 saac oo habeenimo baa laga rawaxaa inta u dhaxaysa waa 2 shift weeye shiftiga hore 8 saac soo gala wuxuu baxaa 12 waxa soo gala 12 iyo rubi waxa soo gala shiftiga labaad waxay baxaan 2 saac iyo 10 daqiiqo oo habeenkii ah iyaguna baxaan iskuulka informationkiisa walaal intaas weeye wax hadda wax la radeynay saad u aragtay casharadii waad aragtay macallimiintii waad aragtay aniga oo iskuulka administrationkiisa waad aragtay sida ardaydu wax baranayaan waad aragtay farta ardaydu waad aragtay inta badan waa isku taxallujin hase yeeshee waxay ku fiican yihiin horumar in maanta meesha joogin bari aysan joogin saada ma aysan joogin ka sifrinaada deegaanku wuxuu u baahan yahay dugsiyo tababar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. si kastaba ha ahaatee marka la eego waxbarashada degmada Caawud sanadihii ugu dambeeyay ayaa laga gaaray horumar waxaana hadda degmadu leedahay iskoolo aad u fara badan kuwaas oo isugu jira macaahid iyo iskoolo caadi ah waxaa markii ugu horeysay qalin jebisay iskuulka Hiirda ardadii dhamaysatay dugsiga sare kuwaas oo xaflad lagu gudnaysiinayay shahaado toddobaadkii hore ay ka dhacday magaalada Caawud Axmed Maxamuud Xasan magaalada Caawud ee gobolka Galgaduud.